waa mahadsantahay magacaygu waa Cabdirasaaq Ali Cilmi macalinka degmada Boondheere waa sanadkii ugu horeysay oo degmada macalin ah u noqdo sanadkii hore waxaa macalin labaad ka ahay degmada Waaberi oo championka degmooyinka ah sanadkii hore sanadkan waxaan rajaynaynaa degmada Boondheere inaan koob kula guuleysan doono isbedelkan waa dareemi kartaa tababarka waxaan bilaabnay 2 bilood ka hor waxaan tababarka u bilaabnayna wax kale ma waa inaan ka qayb qaadano tartanka degmooyinka inuu meel fiican ka gaaro mar waliba kubadda cagta waxa ka jiro wax la yiraahdo isbedel macalinkan wuxuu u baahan yahay mar walba habagidi u baahan yahay maadaama sanadkii hore aan kula soo guuleystay degmada Waaberi waxaan rajaynayaa sanadkan khibradii iyo way aragnimadii aan ka soo qaatay inaan wax ugu soo kordhiyo degmada Boondheere sanadkan aan kula guuleysto Ilaahay raali ka noqdo inta badan sanad walba waxa dhacdo isbedel dhaco qaarkood waxay aadeen heerka koowaad qaarna heerka labaad inta kale oo inoo soo hartay oo inoo joogan waxayna qayb ka yihiin sanadkan ciyaartooyda matalaysa degmada groupka waxa ku wada jiro degmooyin diyaar garowgooda aad u fiican yahay waxaan rajaynaynaa inaan kaalinta koowaad kaga soo baxno maadaama aynu nahay degmada ugu horeysay oo diyaar garow bilaawday sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan dardar xoogan kaga soo baxno groupka mar waliba ciyaarta saaxiibtinimada waxa dhaca khaladaad badan khaladaadkan waxa loo baahan yahay in la saxo marka waa dibna waa ka soo sixi doonaa Ilaahay raali ka noqdo kulamo kale oo saaxiibtinimo oo isbuucan aan ciyaarayna way jiraan marka wixii aan soo saxnayna kulankaas aan ku soo bandhigi doonaa Ilaahay raali ka noqdo wax halka aan ku imaanay waa maamulka iyo taageerayaasha degmada waana degmadii ugu horeysay oo taageerayaasheeda ay u soo daabasho tagaan tababarka dhiirigelinta waxay ka bilaabeen tababarka ka bilaabeen waan ugu mahadcelinaynaa arintaas waxaan rajaynaynaa inay sii wadi doonaan tartanka doo bilaawdan ay garoonka soo buux dhaafiyaan maamulkan waxaan ugu mahadcelinaynaa garab istaag oo mar walba oo garab istaag oo taagan yahay ciyaartooydana waxaan ugu hambalyeynaa ciyaarta quruxda badneed ee galabta ay soo bandhigeen